السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. qansaxow shalayta waxaan ku arkay adigoo ninkii reer quraca ee qamadi ahaa la taagane maxaa isu keengeeyey? allah oo inan qamadina waa taqaanay. isaga iska daayee lafihiisa aqaano waa aniga dee qabiilkiisiina kuu sheegay. malaha qaraabanima idinka dhaxaysa oo sidaasaad qabiilkiisa u taqaanid amaynu labadeennuna qaraabaan isogay noqonnaa. allah ma reer qurac qaraabanimo iska daayee dee ismaba gelno. waa xawkaani ninkan qamadi anigaa ka aqaan oo waa nin soomaali ah muslin ah wanaagga jecel xumaantana necab dadka dhibban kaalmeeya cadaalad badan aanna dadka dulmin. laakiin waxaadan ogeyn inuu reer qurac yahay ayaan u malaynayaa ee sidaa umaad faaniseen. waxaan u ogahay reerku yahay sidaa magaciisaba u aqaane maxaa iska galay isaga qof ahaan iyo magaca reerka uu ka dhashay. allah wasoo adiga u hadlaya sidii doqonkii oo kale. waa nimankan reer qurac waa niman belo ka talis ah. dadka waxay tusaan wax ka duwan waxa u qarsoon waxayna ku sirtaan kuwa aan meesha fog wax ka eegin ee ku kadsoomaya hadalkooda iyo waxa ay dadka u muujinayaan keliya sida adigoo kale. ma reer qurac oo dhan baa sidaas munaafiqiin u ah mise mid iyo laba aad wax wada wadaagteen ayaad quwaaxow sidaa kala kulantay? mid iyo laba kuye waar ileen nacasnimada wax ogaan la-aan baa kuu dheer. waar ab iyo isir nimankani sidaasay ahaayeen. ab iyo isir ah ma sida waad ku ogaatay? maadaa quruuntii tegay oo dhan la noolaa kuwooda dhalan doonana la noolaan doona. waar aweewayaasheena noo sheegay oo noo soo gudbiyey waanu ka dhaxalnay. carbal dee adiguba waa kaasi arag iyagoo aan korka kaa tusayn inay dad fiican yihiin baladooda way qasanayaan. oo adigu quwaaxow sidee baad ku ogaatay inay korka uun kaa tusayaan ee aanay dhabka ahayn? ma qalbigoodaa daalacataa ma qaarkood baa si hoose kuugu sheegay oo kuugu siraystay inay sidaa iyagu hoos ahaan ugu heshiiyeen mise waxaad sheegaysaa inaad nebi loo waxyoodo tahay oo waxa qarsoon ayaa alla kuu muujiyaa adiga keliga. quwaaxow bal ka waran haddaan ku idhaahdo waad qaldan tahay. diinta islaamka ee aynu aaminsannahay waxaynu ka barannay inaan wiil iyo aabbihii laysu qaban oo aanay nafi naf kale dambigeeda qaadayn. in waxa keliya ee reer hebel kaas looga wada dhigay ay tahay in la isku garto si fiican la isugu garab galo waxa xunna la isaga celiyo. waxaynu ka barannay in qofka aan lagu xukumin in magaciisu cali caasha ama cilmi yahay la eego waxa uu qabto iyo sida uu u dhaqmo oo iyagaas keliya lagu qiimeeyo. waxaan diinta ka barannay in dadka kan ugu fiican yahay kan ugu alle iyo xuduuddiisa dhowris badan. waxaan ka barannay in kala duwanaanshaha midabka iyo lahjadu ayna tusayaan quwadda rabbi ee awooda samaynta kala duwanaanshahaas iyagoo kulligood hal hooyo iyo hal aabe ka soo wada unkamay. waaxow waxaynu diinta ka barannay in qof kasta keligiis aakhiro laga xisaabinayo wuxuu geystay oo weliba aakhiro cid kasta oo uu wax ka sheegay ku sameeyey ama wax aan sax ahayn ugu xukumay ay u soo wada safan doonaan si ay xaqoodii uga qaataan. allana dee waa caadil. bal ka waran haddii reer qurac koodii ugu horreeyey ilaa koodii ugu dambeeyey alle hortiis saf dheer kuu soo galaan iyagoo xaqoodii kaa raba ummad dhan. waaryahay qansax ukaadi waa ukaadi de war waxaad sheegaysaa qalbigay dhaqaajiye mana adkaysan karee bal iga kaadi iga kala kaadi aan intaa ka fakaraya. awowayaashay lama aanan noolayn dadka uun baan ka maqlay anigu waan iska qaatay. aakhiro iyo saf dheer kii ugu horreeyey ilaa kii ugu dambeeyey ayaa kuu soo galaya. maalintooda iminka nool aanan badee aniga qabiilkayguba raalli gelin karin ma keliga iyo alla hortii maya walaa qansax nacas maaha aniga nacasa. waar qansax intaan balaayo maqaaxida la fadhiyay oo aan ummado qabiilooyin ah midba mar cunayay oon dambigooda dusha saaranayay ayaad adiguna wakhtigaagii ka faa'iidaysatay. walaale iyo wixii aakhiradaada ku anfici lahaa ama ku badbaadin lahaaba aad ka baratay masaajida caruurdaad iga kicisay dee albaabiga xidhnaana waad ii furtay. wixii hadda ka bilowdana waxaan ballan qaadayaa inaan dadka ammaan geliyo annaga masjidka wax ka barto oo aan khayrka ku xirmo. walaal quwaax
horta allah ma hadda iska leh oo wada hadalkeenaan qadaray anna wax wanaaga kuma aanan geline waajibi saarnaa oo dambiga raaci lahaa ayuun baan gudanayay iminkana dee adaaba i anfacaya oo dee ajar baban kaa helaya haddii aad towbadda ka dhawayso iminkana waxaan kuu geynayaa oo kugu xidhayaa sheekha ugu fiican ee dadka masjidka wax ka bara waa sheekh Qamadi waa ninka aan jeclahay inaad cilmigiisa ka qaadato oo aad ka noolaato wanaagii uu shaydaanku kaa xidhay isagoo kuu tusay inuu sheekh Qamadi cadowgaaga yahay isagoo ah kii ku badbaadin lahaa ee wax ku bari lahaa dhanka kalena dee suuqan ku geynaya oo intaad shaqaysato ayaad nolol fiican helaysaa oo dee qurunka ka baxaysaa baraare iyo bashbashna dee waad ku noolaanaysaa insha allah kase waran haddii qof kasta oo qurunka qabyaalada ku jira sidaa yeelo wadantiisa aakhiro iyo adduunba raacdo soo inagoo dhami barwaaqo kuwaynaan noolaaneen samaynaan noqoneen dad horumarka ay gaaraan adduunku ku soo hirto inakeen inaan waqti kale sii dhowin inakeen inamani towbadii quwaax way wanaagsanaatay suuqiina wuxuu la tegay raganimo siyaado ah oo wuxuu muddo yar uga mid noqday kuwa ugu xoolaha badan wuxuu hal sano kadib go'aansaday inuu magaaladiisa ka furo iskuul aroor galab iyo habeenba dad kala duwani oo isugu jira carruur dad waaweyn dumar iyo rag intaba ay wax ka dhigtaan oo lagu baro qabyaaladda iyo faa'iida xumadeeda xagga duuniyo xagga aakhiro ay intaba leedahay 2 sano kadib magaaladii waxay noqotay midda ugu horumar iyo dhaqan fiican dalka oo dhan waxaana iskuulkii loo bedelay meel lagu tababaro magaalooyinka kale ee raba inay gaaraan meesha ay gaartay magaaladii quwaax ma kala hay fadlan oo ku fakar si aad ugu cibro